kulanti wacan oo wanaagsan meel walbo aad joogtaan iyo si walbo aad noo maqlaysaanba. ku soo dhawaada mar kale barta YouTube-ka ee Arsenal Somali Fans. haddaba maanta waxaynu ka hadlaynaa hordhaca kulanka kooxaha Manchester United iyo Arsenal ku dhex mari doona garoonka Old Trafford ee magaalada Manchester. kulankani ayaa la daaban doonaa maalinta Isniinta 10 fiidnimo xilliga Geeska Afrika. haddaba United ayaa u muuqata inay dhaawac ku waayi doonto weeraryahanadooda joogtada ah ee Anthony Martial iyo Rashford, waxaana la filayaa in weerarkooda hogaamin doono 17 jirka lagu magacaabo Greenwood. xaaladda Pogba ayaa la qiimeyn doonaa maadaama uu ku dhaawacmay kulankii ugu dambeeyay ee United ay ciyaartay koobka Carabao Cup-ka, laakiin Luke Shaw ayaa ku soo laabtay tababarka kooxdiisa Manchester United. haddii aynu eegno dhanka Arsenal, waxa ay dhaawac ku waayi doonaan xidigooda Alexander Lacazette oo qaba dhaawac dhanka anqowga ah. sidoo kale Smith Rowe ayaa dhaawac ku seegi doona kulankani, laakiin waxa ay war wanaagsan ka helayaan xidigooda Dino Mavropanos ama Konstantinos Mavropanos oo ka ciyaara dhanka daafaca, wuxuuna kulankani diyaar u yahay in loo soo xusho. Rob Holding iyo Hector Bellerin oo iyagu dhaawacyo fog ku maqnaa ayaa kooxda ku soo laabtay, waxa ayna kulankani diyaar u yihiin inay ka hortagaan kooxda Manchester United, halka Kieran Tierney oo isagu laftirkiisu ku maqnaa dhaawac fog uu kooxda ku soo laaban doono oo uuna diyaar u yahay inuu ciyaaro kulankiisii ugu horeeyay ee horyaalka Premier League. xidigahani dhammaantood ayaa ku maqnaa dhaawacyo waqti fog, lamana yaqaan haddii macalin Unai Emery uu soo xulan doono inay ka qayb qaataan safka koowaad ama inay ku soo bilaaban doonaan kursiga kaydka. haddaba haddii aynu horey ugu sii socono barnaamijkeena, Arsenal ayaa doonaysa inay soo afjarto 12 kulan oo aysan wax guul ah ku gaarin garoonka Old Trafford. waxa ayna Arsenal indhaha ku haysaa inay 2 jeer oo isku xigta ay ka adkaato kooxda Manchester United tan iyo 2006 iyo 2007. markii ugu dambeysay oo ay Arsenal kulan horyaala ku soo adkaato garoonka Old Trafford ama masraxa riyada waxa ay ahayd 17 September 2006, waxaana kulanka Arsenal ay hal iyo waxba uga adkaatay kooxda United oo gurigeeda ku ciyaaraysay. goolka madiga ah ee daqiiqadii 86 ee kulankaasi dhashay waxay Arsenal uga mahadcelinaysaa xidigoodii ku caasiyay ee Emmanuel Adebayo. United ayaa xilli ciyaareedkani lagu abaalmariyay 4 gool kulaad 6 kulan oo ay ciyaareen, waana kooxda ugu badan ee lagu abaalmariyay gool kulaadyada. dhanka Arsenal waxaa laga dhigay 3 gool kulaad ama penalties oo iyaguna noqonaya kooxdii ugu badnayd ee 3 gool kulaad laga dhigay xilli ciyaareedkani socda oo la ciyaaray 6 kulan oo kaliya, waxayna Arsenal qaabishay 3 gool kulaad. Arsenal ayaa ku guuleysatay kaliya inay hal kulan shabaqeeda ilaashato 11 kulan ee ugu dambeeyay oo ay ciyaartay horyaalka Premier League, waxaana ugu yaraan min 2 gool laga dhalinayay 4 kulan ee ugu dambeeyay oo ay Arsenal ciyaartay. waxaana halkaa ka muuqata habaacsani baahsan oo dhanka daafaca kooxda Arsenal oo ayba maraysaba ku tuur kubadda goosha ha ka soo baxsadaan. United ayaa guuldareysatay 3 ka mid ah 6 kulan ee ugu dambeysay oo ay ku ciyaareen garoonkooda. haddaba waxaan ka hadlayaa waa kulamada horyaalka ah. United ayaa u muuqata koox 50-50 ah marka ay ku ciyaarayso garoonkooda ama marka ay ku ciyaarayso dibaddaba. weeraryahanka reer Gabon ee Pierre-Emerick Aubameyang ayaa dhaliyay 13 gool kadib 13 kulan ee ugu dambeeyay oo uu ciyaaray horyaalka Premier League. xidigani ayaa haddaba ah gool magafe ama utur auba hadaliya goolka ah. kulankii ugu dambeeyay ee Arsenal iyo United dhexmaray waxa uu ku soo idlaaday 2 gool iyo waxba. kulanka oo 2 gool iyo waxba ay ku adkaatay kooxda Arsenal ayaa ka dhacay garoonka Emirates ee magaalada London, waxayna goolasha Arsenal ugu mahadcelinaysaa Xhaka iyo Aubameyang. kulanka oo la ciyaaray 10kii bishii 3 ee sanadkan
Arsenal ayaa haddaba baadigoob ugu jirta inay markii labaad ka adkaato kooxda Manchester United isla sanadkani kulan ka tirsan horyaalka. Xhaka ayaa loo magacaabay kabtanka kooxda Arsenal kadib markii uu ku guuleystay codbixin ay qaadeen xidigaha kooxda Arsenal. Haddaba arrinta xiisaha leh ayaa ah xidigihii Arsenal iyo kooxda Manchester United ay isweydaarsadeen ee Alexis Sanchez iyo Henrik Mkhitaryan oo labadooduba ka maqan dalka England. Xidigahani ayaa ku maqan dalka Talyaaniga oo ay si qaab amaah ah ugu biireen kooxaha Inter iyo Roma, waxayna u muuqataa heshiisyadii lagu kala weydaartay xidigahani inay gebi ahaanba ahaayeen heshiisyo lagu qasaaray. waxaa halkaas inoogu dhan warbixintii koobnayd aynu kaga diyaarinay hordhaca kulankani dhexmari doona Manchester United iyo kooxda Arsenal. anigoo Maxamed Cabbaas ayaa idin soo koobay halkan idinkugu soo gudbinayay. ilaabin inaad subscribe saarto channelkani hoosna noogu sheegto natiijada aad rajaynaysid inuu ku soo idlaado kulankani. isma dhaafno.